waxay dad badan kugu tilmaamaan shakhsi adeegiisu xadka dhaafay oo aan lahayn dhaqankii wasiir arrimo dabadeed laga rabay. tusaale haddaan u soo qaato sidii qaabka darayd ee aad ula dhaqantay wasiirkii arrimaha dibadda ee Sweden mar aad shir jaraa'id wada qabanayseen. wasiirkaas si xanaaq leh ayaad ula hadashay, weliba hadallo aflagaada ah ayaad ku tiri, isagoo weliba marti ku ah oo jooga Ankara, iyadoo dunida oo dhan ay live ku daawanaysay wixii aad oranaysay. soo maahayn ugu yaraan inaad wax basariso. sifooyinka lagugu sheegay sax ma yihiin, adiguse sidee isku aragtaa? wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Jawish Oglo ayaa ku jawaabay sidan: dadka sidaas aad sheegtay ii arka aniga ceeb ma laha, waayo waa aragtidooda, amase waxaanay la socon xaalka siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga ama dunida. waan se ku ixtiraamayaa fikirkooda. aniguse waxaan isu arkaa wasiir aan xadgudbin haddii aan lagu xadgudbin. waxaan isu arkaa qof ku socda xawaare macquul ah oo aan ka badbadis lahayn. waxaana ku socdaa xawaare la-eg dalka anigu aan matalo wakhtigan maanta. hawsha aan hayo xitaa waxaan hubaa inay ku qanacsan yihiin wasiiradii xilkan iiga horreeyey. mararka qaarkood wasiiradii arrimaha dibadda ee aniga iga horreeyey ayaan la tashtaa oo wax ka weydiiyaa qadiyadaha xasaasiga ah, iyadoo wasiiradaas qaarkood ay hoggaamiyaan xisbiyo mucaarad ah. sababta aan ula tashto waa inay iga khibrad badan yihiin, umana eego mucaaradnimadooda, balse waxaan hubaa inay daacad u yihiin dalkan. waxaan filayaa intaas aan sheegay way igaga filan tahay inaanan ahayn qof qalafsan. waxaan u mahad celinayaa madaxweyne Erdogan oo i siiyey fursaddan weyn ee aan dalkayga ugu adeegayo. waxaan rajaynayaa inay i beddeli doonaan kuwa aniga iga sii fiican dhinac walba. waa marka aan la hadlayo kuwa aniga iga soo horjeeda. haddii aan ka hadlo wasiirada la tilmaamay inaan si qallafsan ula dhaqmay oo ka baxsan diblomaasiyadda, haddaan wax yar ka idhaahdo, wuxuu si cad iigu yidhi wasiirkaasi raalli kama nihin joogitaanka ciidamada Turkiga ee Suuriya. Turkigu waa inuu ciidamadiisa kala soo baxaa Suuriya. dunidu way og tahay in Turkigu aanu Suuriya u joogin damac dhaqaale iyo wax dhibaato kala ah. kaliya waxaan ka hortegaynaa fallaaga doonaysa inay falal argagixiso ka geystaan dalka Turkiga. dadka ku dhaqan deegaanada Suuriya aan ka joogno waan caawinaa, si bini'aadannimo ayaan ula dhaqannaa. cid kasta way soo weydiin kartaa. marka wasiirkaas waxaas oo wanaaga uma muuqdaan, marka sidee ayuu noogu khasbi karaa inaan Suuriya ka soo baxno? taasi waxay ahayd arrin xadgudub ku ah madax bannaanida dalkeenna. qaar ka mid ah dalalka reer galbeedku waxay galeen dalal ku yaalla bariga dhexe iyagoo ka lahaa dan dhaqaale. shidaal dartiis ayay u dileen malaayiin qof oo aan waxba galabsan. ma aragteen cid dembiyadaas ku haysata oo dhahaysa ka soo baxa dalkaas? waa maya, lama arkin. sidaas darteed waxaan ku leeyahay quwadaha reer galbeedka qaarkood, haddii kuwo annaga naga mid ahaa waa hore ay idiin jabeen oo aad u sheegi jirteen una yeerin jirteen xitaa xilliga ay seexanayaan iyo sida ay u seexan lahaayeen. maanta kuwaasi ma joogaan, xaalkuna waa isbeddelay. waxaa noo bariyey waa cusub, waanuna garanaynaa waddada aan mari lahayn iyo tii aan ka leexan lahayn. hadda ayaan caddaynayaa mar kale inay dunida ka soo dhammaatay falsafaddii ahayd anigaa taydu soconaysaa, anigaa dunida booliis ka ah, idinkuna waxaad ka tihiin biriijkii boolisku ku dul socon lahaayeen. waa Cabdirasaaq Jubbaah oo inla intaan dib u kulmayno. nabadgelyo.